وعيدة يا لمنتا عسية وناقة لمنتا قبني مكوعة لمنتا عنكو عافي ما لمنتا وعيدة عيدة منتا هلو عيار منتا وعيدة عيدة منتا هلو عيار منتا. السلام الله عليكم. soo dhawaada dhalinyaro. maanta waxaan jeclaystay inaan soo gudbiyo film xaqiiqa laguna magacaabo The Brace Fortress. waxaa la joogaa maalin Sabti ah 21 Juun 1941. Alexander Akimov sidoo kale loo yaqaan Sasha waxa uu gacan yar u yahay ciidanka cas ee qalcadda Brace. waalidkii waxay ku dhinteen dagaal. waxaa qalcadda kula noolaa walaalkii ka weyn laguna magacaabo Andrei. dadku waxay isugu soo baxeen qalcadda Brace halkaas oo ay ku caawinayeen halka Sasha uu ku ciyaarayay qalabkiisa buufinta muusiga. waxa uu arkay Anya oo u baaqaysa waxaanu bilaabay inuu daba kaco balse waxa joojiyay walaalkii Andrei oo indhaha ku hayay. waxa uu hanjabay inuu taliyaha u sheegi doono haddii aanu sii wadan ciyaarta. Sasha waxa uu bilaabay inuu iska jeediyo isagoo salaan u saaray. Sasha waxa uu bilaabay inuu dib ugu laabto xerada maadaama uu doorasho kala haysan. inkastoo ay qalcad tahay mid aad u kooban haddana Sasha waxa uu yaqaanaa meelo badan oo dhufays ahaan u fiican. Taliya Fomin waxa uu ogaaday inaanu qoyskiisu iman doonin Brace maadaama uu tigidhkii tareenku gaabaabsi yahay. Nicola waxa uu u socday dhanka qalcadda waxa ag lugeynayay Taliya Fomin. wuxuu ka codsaday inuu hore u sii raaco waxaanu fuulay gaadhiga waxaanu bilaabay inuu dhambaal u qoro xaaskiisa isagoona u sheegay halka uu joogay iyo amnigeeda guud. sidoo kale goor walba weerar lagu soo qaadi karo iyaga. Garliff oo ka tirsan saraakiisha qalcadda waxa uu ka warwarsan yahay difaaca qalcadda. dhanka kale darawalka tareenka Brace waxa uu kormeerayay qaybaha tareenka isagoona hadda soo galay magaalada Brace. waxa dhankiisa soo aaday nin isku eegaysay ciidanka qalcadda. darawalka tareenku aad ayuu u naxay markii uu arkay askar Jarmal ah oo ku labsan dareeska ciidanka qalcadda oo ka soo degaya tareenka. waxay isla markiiba dileen darawalkii. ciidanka Jarmalku hadda waxa ay ku sii jeedaan qalcadda Brace. dadka Brace wax fikrad ah kama haystaan waxa dhici doona saacadaha soo socda. Nicola intii uu ku guda jiray gurashada ubaxa si uu u guddoonsiyo xaaskiisa waxa si kadis ah ugu yimid taliyaha ciidanka Jarmalka waxaan weydiinay magaciisa saxda ah balse isagoon wax jawaab ah siinin ayuu u cararay xagga gurigiisa. maalinkii xigtay waa berigii hore ciidamada Jarmalku waxay bilaabeen duqeynta magaalada Brace halka Sasha iyo Anya ay ku sugnaayeen harada Brace. xilli duqeymaha magaalada ka socda ay soo gaadheen harada taasi oo sababtay inuu biyaha ku dhaco Sasha balse wax badan kuma aysan qaadan inuu ka baxo biyaha. Colonel Shifatov oo ah aabaha dhalay Anya waxa lagu qasbay inuu ka qayb qaato dagaalka taasi oo sababtay inuu qariyo qoyskiisa. Sasha waxa uu ku soo laabtay qalcadda waxaanu arkay in ciidamada Jarmalku si arxan darro u garaacayaan qalcadda. shacabka ku hareeraysan qalcadda qofna ma saadaalin karin waxa uu dambeyn doono iyaga. Sasha waxa uu rabay inuu tago meel loo qorsheeyay kulamada gaarka balse waxa uu arkay goobta oo la qarxiyay. intaa kadib waxa uu tagay qolka muusikada si uu soo qaatay aaladii isticmaalkeedu gaarka u ahayd. maalinkii xigtay ciidamada Jarmalku waxay weerar culus ku qaadeen qalcadda iyagoona la wareegay shaqaalaha isbitaalka iyo bukaanadii ku sugnaa. halka dadka isku dayay inay u baxaan dhakhtarka banaankiisa ay leynayeen ciidamo kale oo Jarmal ah. Fomin waxa uu kulan la qaadanayay hogaamiyaha difaaca agagaarka qalcadda Homegate waxaana uu sheegay hogaamiyuhu in ciidanka Jarmalku sii jeedaan jihadooda sidoo kale ay ka dhamaatay rasaastu. dhanka kale Garliff waxa uu ciidanka u abaabulay agagaarka qalcadda. dhanka kale Lieutenant waxa uu kolkaba aqoonsaday nin basaas ah oo ku dhex jiray ciidanka. ninkuna waxa isku dayay inuu baxsado balse waa uu toogtay. dhanka kale ciidanka Jarmalku waxay hore u soo wateen dadkii ku sugnaa isbitaalka. 3 taangi ayaa ku sii socda gudaha qalcadda. ciidankani waxay ku jiraan howlgalka dhimashada inta ka hadhay ciidanka cas. ciidanka cas waxay kolkiiba bilaabeen inay isu qaylo dhaamiyaan waxayna dilayeen Jarmal kasta oo soo gala xayndaabka qalcadda. isla markaa ciidanka qalcadda waxay bilaabeen inay adeegsadaan hubka culus ee ganada dheer. waxa halkaasi ku dhaawacmay gacan yaraha Garliff. 24 saac kadib ciidanka cas waxa ka soo hadhay 18 qof oo kaliya kuwaas oo leh khibradda dagaalka iyo hubka. saas oo ay tahay kama aysan rajo dhigin inay difaacaan qalcadda. welina ma haystaan wax caawina cunto iyo sidoo kale biyo toona. xaaladdu waa mugdi rajo la'aan. ciidanku waxay bilaabeen inay isu qaybiyaan 3 unug. maalintii xigtay dagaal qalcaddu wuu sii socdaa halka uu Sasha soo gaaray albaabka Homegate halkaasi oo uu ku baxsan karo. waxaanu gabaad ka dhigtay mid ka mid ah qalcadaha yaryar waxaanu ka wareysanayay Anya. Sasha waxa uu la kulmay Shifatov
waxaanu taliyuhu u diray Sasha halka uu ka hawlgeli doono. Dhanka kale Nicola waxa uu ahaa tabcaan, waxaanu dhacay dhulka markii uu soo kacay waxa uu arkay saaxiibadii oo ay askarta ciidanka Jarmalka u jiideen si ay u adoonsadaan. Aad buu uga cadhooday arrintan, waxaana u baxsaday si uu iskaga qariyo ciidanka. Markan ciidanka qalcadda cas waxaa loo soo diray diyaarad, balse isla markiiba waxaa qarxiyay ciidanka Jarmalka. Fomin ciidankiisu waxay badbaadinayeen duuliyihii diyaaradda, waxaana uu sheegay inay ku qasban yihiin inay ka baxsadaan qalcadda. Fomin waxa uu fahmay inuu leeyahay ama ku halgama ama ka yaaca meesha. Dhanka kale waxa uu sheegay inay jiraan samata bixinta shacabka magaalada. 24 Juun, shacabka qaar waxa ay u dhimanayeen gaajo iyo macluul, taas oo ay keentay sahay yari dhanka biyaha iyo cuntada. Si loo helo biyo macluusha lagaga baxo, qaar ka tirsan ciidanka cas waxa ay ku guuleysteen inay gaadhaan biyaha, balse biyuhu ma aysan ahayn kuwo la cabbi karo. Waxay aad ugu dhawaayeen shidaal waxayna badi dhadhamiyeen shidaal. Iyadoo la raacayo go'aanka hoggaanka sare, ciidanka cas waxay go'aansadeen inay si degdeg ah uga baxaan qalcadda si ay dib ugula xiriiraan qaybahooda kale. Sasha waxa uu la socdaa amarka, balse looma ogola inuu raaco ciidanka. Taa beddelkeeda waxaa lagu amray inuu biyo geeyo qaybta hoose ee qalcadda, halkaas oo ay dhakhaatiirtu ku daweynayeen askartii ku dhaawacantay dagaalka. Ma diidi karo amarka taliyaha, waana ku dhaqaaqay. Dhanka kale Sasha waxa uu arkay nin ciidan ah oo fariisida, waxaanu ka qaaday warqadda isagoona ku dhuumanayay qalcad kale u dhoweyd goobta. Waxaanu qalcadda kula kulmay Anya. Sasha waxa uu ka fikiray qaabkii fariintan ugu gudbin lahaa taliyayaasha sare, waxaanu Anya u sheegay inuu ku soo laaban doono. Sasha waxa uu halgamay sidii uu fariinta u gudbin lahaa. Socdaalkiisa waxa uu kula kulmay meydad tiro badan. Ugu dambeyn waxa uu fariinta gaarsiiyay kale Lieutenant iyo Gavrilov. Habeenkii xigay, unugga saddexaad ee ciidanku waxay isku dayeen inay baxsadaan, balse waxaa dib u celiyay ciidanka Jarmalka. Lieutenant waxa uu yimid aagga unugga saddexaad oo ay waxoogaa ka horbaabiyeen ciidanka Jarmalku, waxaanu arkay meydad tiro badan oo welina u badan carruur. Dhanka kale Sasha waxa uu ku soo laabtay Anya, waxaanu faray inay ku laabato guriga aabaheed, sidoo kale waxa uu siiyay waxoogaa biyo ah. Lieutenant waxa uu amray dadka soo hadhay oo ay ku jiraan xaaskiisa iyo inantiisa Anya, sidoo kale Sasha inay isaga tagaan goobta, taasoo ay ku dhaqaaqeen samaynteeda iyagoo aan raalli ka ahayn. 26 Juun, 3:30 daqiiqo, weli ciidanka cas waxa ay sugayaan caawinta magaalada, waxayna dirayeen telefoon si ay u helaan gargaar degdeg ah. Halka ay ciidanka Jarmalka qalcadda ku soo rideen Tutanbam, kaasi oo sababay burbur baahsan. Ciidanka Jarmalka waxay isla markiiba bilaabeen inay burburiyaan waxa soo hadhay iyagoo adeegsanaya kaarayaal. Sidoo kale waxay bilaabeen inay dab qabadsiiyaan dhufaysyada. Ciidanka Jarmalka waxay sawir jees-jees ah la gelayaan Nicola. Sidoo kale Nicola waxaa loo xilsaaray ururinta bambooyinka ku daadsan qalcadda, balse markii uu arkay meydka saaxiibtiis waxa uu go'aansaday inuu isdilo, isagoona isku qarxiyay bamba gacmeed. Ugu dambeyntii difaacayaashii Homegate waxaa lagu qasbay inay isdhiibaan, halka taliya Fomin golkiiba lagu qaaday xukun dilwadareed ah. Dhanka kale Gavrilov waxa uu amray ciidankii ka soo hadhay dagaalka inay ka tagaan goobta, isagoona mid ugu mahad celinayay dadaalka ay bixiyeen. Sidoo kale Lieutenant iyo intii ka soo hadhay guutadiisa waxay awoodeen inay dib isugu soo ururaan, isagoona Lieutenant ku amray inay ka baxaan goobta, halka uu isagu xagga dambe ka difaacay ciidanka. Ugu dambeyn waa la dilay Lieutenant, halka uu Sasha keligii la lugeynayay fariin khaas ah si uu u gaarsiiyo magaalo kale. Filimkan waxa uu ku soo dhamaanayaa Sasha oo sanado badan kadib ku sugan taalada Brest Fortress oo xus ahaan loogu taagay halgamayaashii 1942. Fadlan haddii aad nala soo gaadhay halkan, ku mahadsanid daawashadaada. Ha ilmaamin inaad channelka subscribe saarto, sidoo kale like saarto muuqaalka.